هذا المسؤول شد على هربيسا حسب وينه حسب الديمقراطي هاي دولي كرام ولا هبل كرام وحفلاتين كرام arrimaha isku qaban karo kana heshiin karo ay xisbiga kulmiye muujay waxaan filayaa xisbiga mucaaradka ay fadhiyeen inay tartan galaan wali inay qalbiyada bulshadu ay qiimayn ku sameynayso madaxweynaha qaranku wixii uu qabtay uu yahayna intii Soomaaliland jirtay markii uu waxqabadka badnaa taariikhda xisbiguna dhaqankiisu waxa weeye in la wada hadlo la doodo laakiin aan la kala tegin waan ku hambalyeynaa guddidii iyo raggii ka shaqeeyey isu soo dhaweynta qaarada kulmiyadiisa oo runtii wax lagu farxaa oo habeen ciidan lagu tilmaami karo sidii barasaa ku tilmaamay xisbigan kulmiye ee xisbiga xaakimka waa xisbi aad iyo aad u ballaaran oo afarta daafood ee Somaliland ay ka wada muuqdaan oo dimuqraadiyadiisu tahay mid dhab ah oo xalaal ah ka soo baxay waa taageersanahay waana go'aan cawada ku fiican yahay waana go'aan talo ku soo baxay waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo wixii ka dambeeyay inaan khilaaf yeelanin inuu madaxweynuhu u saaray inay soo afjartay oo isu keentay in la intii damac ahayd inay isu keento maanta iyagoo mida la soo afjaray haddana nahay taas aan maartay xafladda ku saabsantay waana waxaan balyeeraynaa waxaan caawa taageeraynaa guddida khilaafaadka xalinta khilaafaadka xisbiga kulmiye ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo waxaan leenahay hambalyo laakiin waxa weeye kulmiye horta kii kala tegay maya kulmiye kala tegi maayo horena uu kala tegin maantana ma kala tegayo runtii waxaan mahad ballaaran soo jeedinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo sanahay khilaafaadkii ka dhaxeeya xisbiga kulmiye oo soo dhamaaday waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddida khilaafaadka oo kurba laga jirtay ay khayraasi